example part B-ga waxaana la ka rabaa inaan estimate garayno isla functionkii f of x is equals to x cubed laga bilaabo 0 ilaa iyo 1 annagoo isticmaalayna two rectangles oo haddana upper sum ayaa markan ka rabaa upper sum marka طبعا widthku maadaama two rectangles ka rabo widthka intervalkan haysano oo 1 ah ayaan laba u qaybinaynaa markaas each rectangle wuxuu lahaanayaa width oo 0.5 ah marka height-ka weeyaan meeshay ku kala bedelanayaan ama length-ga marka laba rectangle ayaan haysanaa midkan iyo midkan marka maadaama haddan ka rabo upper sum waxaan isticmaalaynaa labada ay sheegtay for example 0 ilaa iyo 0.5 kee height badanna siinaya طبعا 0.5 ayaan siinaysaa hada 0 haddii aan gelino y value-geeda waa iska 0 moogta ilaa 0 haddii aan cube geliso 0 ay noqon laakiin 0.5 haddaan cube gelino value ka weyn ayayna siinaysaa marka rectangle-keena koobaad saas ayuu noqonayaa waa sida tan waa 0.5 width ayuu leeyahay 0.5 width ayuu leeyahay height-kiisuna waxaa weeyaan waa 0.5 cubed weeyaan marka 0.5 cubedna waxaa weeyaan waa 0.0625 rectangle-ka labaadna waan fiirinaynaa 0.5 iyo 1 keena siinaya height weyn 1 ayaana siinaysa markaa saas ay noqonaysaa upper intervalka marka rectangle-ka labaadna saas ayuu noqonayaa marka saas ayaad u ogaanaysiin 1na haddii aan cube garayno waa iska 1 waa iska 1 marka sifaan u estimate garayno area-da graph-kan annagoo isticmaalayna laba rectangles upper sum waxay noqonaysaa midkan area-da hadda rectangle-kan lagu daray rectangle-kaas marka area waxay la mid tahay midka koobaad waa 0.5 oo lagu dhuftay y value-ken waa midkan moogtay 0.65 waa 0.0625 lagu daray plus 0.5 lagu dhuftay 1 cubed waa iska 1 weeyaan marka waxaa noo soo baxaya area upper sum ah of area upper sum ah oo 0.5625 unit squared marka sidaas ayaan ku keenay area-dii upper sum-ka area-dii graph-kan 0 laga bilaabo ilaa iyo 1 annagoo isticmaalayna upper sum two rectangles ah